kula wanaagsan ku soo dhawaada wararka degdega ama ugu dambeeyay ee wadanka Ethiopia saddex qodob ayaan halkan ku eegi doonaa xilli ay Ethiopia caqabado iyo culaysyo badan oo dagaalo la xiriira ka jiraan maanta waxay u dabaaldegaysaa laba munaasabadood oo isbarkan midda koobaad waa maalinta midnimada Ethiopia xilli dagaalo ay ka socdaan sanooyinkii ugu dambeeyay ama laga soo bilaabo 2020 bishii 11aad ee November xiisado kala duwan iyo dagaalo ayaa ka jira tan iyo markuu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xukunka qabtayna siyaasadda wadanka Ethiopia madagan sidaas darteed haddana maanta waxay u dabaaldegayaan maalinta midnimada Ethiopia magaalada Addis Ababa ayaana lagu qabtay kulan ballaaran oo ciidamada militariga ay garwadeen u ahaayeen gaar ahaan gudaha wasaaradda difaaca ee wadanka Ethiopia waxa kale oo maanta ay u dabaaldegayaan Ethiopia tirsi taariikhoodkooda sanadka 2015 waxa uu galayaa sanadkan marka loo barbar dhigo sanadkii 2014 iyo kii ka horeeyay aakhirkiisiba iyada oo Ethiopia xaaladeedu aysan deganayn xiisado kala duwan iyo xamaasado isxambaarsanna ay xaaladda wadanka isbedelo waaweyn ku keeneen iyadana waa mid kaleeto oo ay Ethiopia maanta u dabaaldegayso haddana sidaas ay tahay culayskaas iyo ciladahaas ayaa jira waxa kaleeto oo marka la fiiriyo guud ahaan madaxda ra'iisul wasaaraha wadankaasi Abiy Ahmed Ali shacabka ayuu u hambalyeeyay maalinta midnimada iyo sanadka cusub intaba wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda madaxda maamul goboleedyada iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ayaa dhammaan shacabka wadanka Ethiopia sanadka cusub ugu hambalyeynaya xilli sidaas la mid ah laga codsaday ama khudbadihii laga jeediyay kulanka wasaaradda gaashaandhigga gudaheeda ka dhacay wadanka Ethiopia ee la xiriiray maalinta midnimada ciidamaduna sida weyn uga qayb qaateen in shacabka Ethiopia ay gacanta isqabsadaan ayna kor u qaadaan calankooda iyo dadanimadooda duulaanka lagu soo qaadayna ay mid ka noqdaan waa sida ay dhinacyadu khudbadahoodii ama hadaladoodii maanta ay u badnaayeen intaas waxa dheer iyadoo labada munaasabadood oo isbarkan maanta loo dabaaldegay haddana dagaal aad u culus baa ka taagan waqooyiga wadanka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay dagaalku waa uu sii cuslaanay dhowr firimood ayuuna dagaalku ka jira si gaar ah waxa subaxnimadii saaka ilaa shalay gelinkii dambe dagaaladu aad moodaa inay dib isugu soo biyo shubteen debate iyo dhinaca gobolka Wollo ee deegaanka Amxarada oo xaaladu ay sii cuslaanayso sidaas la mid ah waxaad moodaa gobolkan Walkayt la yiraahdo oo ay isku hayaan Amxara iyo Tigray in isagana xiisado kala duwan ay ka soo kordheen ciidamada dawladda oo maalmihii la soo dhaafay furinta dhinaca debate ku quman sheeganayay guulo waaweyn hadda wararka qaarkood ayaa sheegaya in aysan wax horumar ah haba yaraatee sameeynin halka wararka qaarkoodna ay sheegayaan in meelaha qaar dib loo soo riixay si guud markaan u fiirino culayskaas ballaaran ayaa guud ahaan wadanka Ethiopia ka taagan dagaaladii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay dhacayna dhinacyadu wax guula ay kala sheegteen ma jirto laakiin kooxda TPLF culays badan ayay dareemaysaa waxa ayna waraaqo u gudbisay sida barnaamijkii xalay baan ku sheegnay golaha ammaanka waxa uu sheegay Debretsion Gebremichael oo ah madaxweynaha deegaanka Tigray in loo baahan yahay in dawladda Ethiopia iyo Eritrea lagu cadaadiyo joojinta dagaalka kuwaasi oo kaashanaya sida uu sheegay maleeshiyaadka deegaanka Amxarada waxa uu sheegay dhib ka badan kii sanadihii la soo dhaafay iyo dagaaladii hore inay deegaanadooda iyo dadkooda haystaan ayna mas'uul ka tahay ama ka yihiin asiyaas afawarka iyo Abiy Ahmed hana laga soo gaaro ayuu waraaqdiisa ku yiri waa markii labaad oo toddobaad gudihii uu waraaq dirayo Debretsion Gebremichael madaxweynaha deegaanka Tigrayga oo arintaas ama culayska ugu badan ninka uu saaran yahay isaga maadaama uu hadda hogaanka TPLF hay xaaladu wali way cakiran tahay xiisaduhuna way sii kordhayaan wada hadallo rajo laga qabay ayaad moodaa iyaguna in culayskoodu uu sii badanayo inkasto oo uu jiro daaha gadaashiisa wada hadallo ka socda iyo isku dayo ballaaran haddana sidaas ay tahay ma jiraan wax isbedel ah oo arrimahaasi ku yimid
inta waxa dheer dawladda Mareykanku inay ku hanjabayso cunaqabatayno horle oo saraakiisha qaar lagu soo rogi doono mana cadda kuwa ay noqon doonaan horay ayay u jireen madax fara badan oo lagu soo rogay ama saraakiil dhinaca ciidamada Eritrea iyo Ethiopia ba oo lagu soo rogay in ay dambiyo iyo dhibaatooyin kala duwan ay geysteen darteed cunaqabatayno xaaladdu marka wali waa halkeedii waxaadna moodaa dawladda Mareykanku sida ay sheegayso inay talaabo kaleeto oo qaadi doonto si guud marka loo fiiriyo marka xaaladda wadanka Ethiopia culayskeedu marba marka ka dambaysa waa uu soo kordhay baaqyada wadamada caalamku ay soo jeedinayaan ee la xiriira joojinta dagaalkan wali sare ayuu u sii kacaya dawladda Mareykanka oo kaashanaysa dhowr dawladood oo kaleeto jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa dhammaan dhinacyada ay arintani khusayso ama isleeyihiin weydin suurtagali kartaa inaad wax iska weydiisaan ama kala hadashaan ayay xiisadani u dhaxaysa xaaladana ku jira doonayana in arintan iyada ah miiska wada hadalka lagu soo celi waxa kaleeto oo iyadana taagan in dawladda Ethiopia dhinaceeda dadaalo kala duwan oo diblomaasiyadeed ay ka wado wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin kaleetaba ay arintaas iyada ka shaqeynayaan halkaas marka aad fiiriso waxaad moodaa dadaalo kala duwan oo isgarab socda ama isbarbar socda ayaa taagan si guud marka xaaladda loo fiiriyo laakiin aan biyo dhacooda iyo halka ay ku soo dhamaan doonaan midna aan la garanayn waxa kaleeto oo iyadana jirta culayska dhinaca deegaanka Oromada ka soo kordhay oo jabhadda oola markii ay tan oo kaleeto dhacdo ama dagaalada waqooyigu ay dib u bilowdaan iyaguna ay sameynayaan ka faa'iideysi iyo isku dayo kala duwan oo arintaas iyada ah amaba ee dhinaca deegaanka Oromada ay caqabado iyo dhibaatooyin horle ka sameynayaan waxayna wararku sheegayaan in dadka shacabka ay la dhibaateynayo dagaalo kooban oo ciidamada dawladda iyo kuwa oola dhex maray iyo sidoo kale xiisado halkaasi in ay iyaguna taagan yihiin in kasta oo dawladda federaalka aad moodo in ay ka gaabsanayso ka hadalka dhinacyadaasi oo kaliya ah ay ku foogan tahay dhinaca waqooyiga iyo waxyaabaha ka jira haddana sidaas ay tahay xaaladda ka taagan deegaanka Oromadu ma aha mid la dhayalsan karo marka la fiiriyo Ethiopia waxay u baahan tahay xasilooni siyaasadeed iyo dejinta xaaladaha kala duwan ee xilligan ku xeeran xukunka Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaruhu waxaad moodaa in uu aad u gaabsaday oo hadalladiisii badnaa ee looga bartay aysan jirin saraakiisha ciidamada oo sanadkii hore aad u hadli jiray gaar ahaan Burhanu Jula iyo ninka la yiraahdo Palacha oo hadda danjiraha Ethiopia wadanka Kenya laga dhigay oo markaas aad u hadli jiray ma hadlaan hadda hadalkooduna aad ayuu u kooban yahay waxaadna moodaa midaas iyadii in ay muujinayso in dhinacyadani ay hadda xaalado kaleeto iyo arrimo ka bedelan kuwii markii horeeto ay adeegsanayaan oo ay aad u koobeen dhinaca wada hadallada intaas waxa dheer warbaahinta culays horle in uu soo foosaaray gudaha wadanka Ethiopia waxaana jira wariyaal xabsiga loo taxaabay iyo sidoo kaleeto in isha aad loogu hayo waxyaabaha ay warbaahintu tabinayso maxalliga ama tan caalamka intaba dawladda federaalka Ethiopia marar kala duwan bay cabasho ka soo gudbisay warbaahinta waxayna sheegayaan in aysan dhexdhexaad ka ahayn xaaladda guud ee wadankeeda ka jirta sidaas darteedna ay tahay midda ay ula dagaalayso amaba ay u dhibsanayso waxyaabaha ay ku tilmaameen been abuurka ama wararka dhinaca ka raran amaba inay dhinac u xaglinayaan amaba waxyaabaha qaarkood oo lidi ku ah dhinaca TPLF iyo caqabadaha ay sameynayaan inaysan ka hadlin kuwa dawladana ay boonbooniyaan hadii wax yar lacala uu dhaco tusaale ahaan dhinaca dawladdu ay samayso arrimaha bini'aadamtinimada digtooni ama digniino ayaa laga soo saaraya iyo in wax laga qabto xilli hay'adaha gargaarka ay ku adag tahay gaarista deegaanada Tigrayga Dimitsi Wayaan oo ah warbaahinta deegaanka Tigrayga waxay sheegaysaa in ay dad badan oo shacaba oo waxba aan galabsanin lagu xasuuqay magaalooyin ku yaala deegaanka Tigrayga laakiin ma jirto cid madax banaan oo arintaas iyada xaqiijin karta dawladda Eritrea eedeymaha ay TPLF u soo jeedinayso sare ayay u kaceen saacadihii la soo dhaafay wadamada caalamka ayayna cadaadiska u badan u gudbinayaan kuwaas oo ay u sheegayaan in laga joojiyo
dagaalka ay dowladda Eritrea ku wado waxyaabaha la aaminsan yahay in uu qabriday amaba ay arintii dowladda iyo TPLF ka dhaxaysay iyo dagaalkii ay kolka hore TPLF aadka wax ku awood badan iska dhigi jirtay sanadii hore hadda hoos ugu dhigay Eritrea ayaa dagaalka ku xoogan ay dadka qaar kood leeyihiin waxa jira falanqeeyaal kala duwan oo arintan ku sheegaya in dagaalka ay toos Eritrea ugu lug leedahay laakiin dowladda federaalka Ethiopia markii ay shalayto gudiga ama hay'adda xuquuqul insaanku ka hadashay arrimo la xiriira Eritrea iyo dagaalkan ay saameyn ku leedahay waa kay cambaareeyeen loona diray cadeymo rasmi oo arrimahaas ku saabsan in ay keenan sida aan barnaamijkii kan ku horeeyay idinku sheegnay marka xaaladdu wali waa la isweydiinayaa xiisaduhuna waa ay taagan yihiin xilli Ethiopia sidaan hore idinku soo sheegay ay u dabaaldegayso maalinta midnimada iyo sidoo kale sanadka cusub ee 2015 ee tirsi taariikheedka wadanka Ethiopia waa mahadsantii